si xanuun badan oo ila soo wadaagay wiil Soomaaliyeed oo xididka dhalmada laga saaray kuna sugan gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayna ka dambeysay xaaskiisa oo uu aad u jeclaa in laga saaro xididkaasi dhalmada. haddaba sidee ayay ku dhacday? sidee ayuu go'aankaasi ku qaatay? barnaamijka aynu ku qaadi doonaa ha yeeshee daawade intaynan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaada la wadaag. ku soo dhawaada barnaamijka. وهلدا حمين جعايكي وانا هويتين يا رواد بانسيري waxaa muddo uu ku noolaa gobolka Florida ee dalka Mareykanka. waxa uu sheegay waxaanu gobolka Florida isku baranay buu yiri gabar Soomaaliyeed. waxaanu qaaday jacayl xad dhaaf ah. waan isguursanay. wuxuu ii sheegay markii aanu muddo isqabnay xaamil ayay noqotay, uur ayayna ii qaaday xaaskaygu. aad ayaan u farxay. nasiib darro markii ay uur yeelatay aad ayay xanuunsatay. dhibaato badan baa soo gaadhay oo uurkii ka soo gaadhay. wuxuu ii sheegay markii ay uur 4 bilood ay ka soo wareegtay aad ayay u cuslaatay xaaskaygu. waxay dhakhtaradii igula taliyeen ilaa inta ay ka dhamaynayso ama ay ka dhalayso inaanay sariirta ka kicin oo ay sariir saaraato, waxbana aanay qaban oo aad loo ilaasho maadaama ay halis ku jirto xaaladeeda caafimaad si aan ilmuhu uga soo dhicin. dhakhtarka ayaa ii sheegay buu yiri haddii ay wax qabato ilmaha ayaa ka soo dhacaya. waxay noqotay bed rest, waxa afka qalaad loo yaqaan ama sariir yaal. muddo markii ay ka soo wareegtay aad ayay u cuslaatay. waxaan ka shaqaynayay buu yiri 2 shaqo. waxaan go'aansaday 2 shaqo inaan mid iska casilo oo aan mid kansal gareeyo. waan joojiyay shaqadii si aan xaaskayga aadka u jecelahay aan u daryeelo. waxaanu joognaa buu yiri tuulo yar oo ka tirsan gobolka Florida ee dalka Mareykanka. ehelna caawiyo nooma joogaan. aniga eheli ma joogo, iyada ehel caawiyaana uma joogaan. Soomaalidu waa ku yar tahay, teel ayayna ku tahay. wuxuu yiri 1 shaqo ayaan soo reebay si aan noloshayga ugu dabaro iyo nolosha xaaskayga. waxaan halkaas shaqo aan ka shaqeeyaa 8 saacadood. xitaa buu yiri 8 saacadood ee aan ka maqanahay cid daryeesha ma haysto xaaskayga maadaama ay tahay sariiryaal. waxaan go'aan ku gaadhay buu yiri inaan u qabto gabadh Isbaanisha si ay 3 saacadood u sii hayso oo uga war hayso oo qadada iyo wixii ay u baahan tahay oo maryaha ay ka bedesho. ayaan u qabtay gabadh Isbaanisha si ay ugu daryeesho xaaskayga. ilmihii markuu gaadhay 7 bilood waa laga soo saaray. maasha Allah, gabadh ayaa noo dhalatay. gabadhii waa caafimaaday. waxa uu ii sheegay markii muddo aanu isku faraxsanay ayay ilmo kala qaaday. dhakhtarkii ayaa yiri gabadhan xanuuno badan ayay leedahay. ilmo dambe hadday dhasho caafimaadkeeda ayaa halis ah iyo in ilmaha uu u dhinto iyaduna ay dhimato. fadlan mar dambe uur si aanay u qaadin marka ay dhasho waa in laga mudaa lana soco sidii ayaanu kaga nimi ayuu yiri dhakhtarkii. wiilkoo hadalkiisa isii wada ayaa waxa uu yiri dhibtii oo kale ayaan maray inaan muddo gurigayga ku hayo. shaqadaydii kale ee soo reebay xitaa waan joojiyey. guriga ayaan ku hayn jiray. waxaan u dhaxeeyay guriga iyo dhakhtarka maadaama sariirta la jiifiyay xaaskayga. ilmihii labaad ayaa 7 bilood lagaga soo saaray isagana. nasiib wanaag mihii labaadna gabadh ayay noqotay. wiilkoo hadalkiisa isii wada ayaa waxa uu yiri dhakhtarkii ayaa noo sheegay in marka aad 40 ay ka baxdo xaaskaagu ay si dhaqso ah dhakhtarka ugu timaado si ilmaha looga joojiyo loogana mudo. aad ayaan u jecelahay xaaskayga. markii 40 ka baxday ayaan u sheegay in la gaaray ballantii dhakhtarka ee fadlan soo baxayaan ku yiri xaaskayga. waxaan u sheegay inaanay ismudayn. waxayna ii sheegtay bay tiri inaanay ismudayn oo aanu doonay inay ismuddo. waxay tiri ubad baan rabaa, niyo isma mudayo ee warka ila dhaaf. gabadh yar ayaan ahay. waxaan doonayaa inaan dhalo caruurtana badsado ee ma ismudayo ee haddaad adigu ismudayso ismud ayay ugu jawaabtay.
waxaan u sheegay in haddii ilmo kale ay qaado ay dhimanayso ilmuhuna uu dhimanayo xaaladeeduna ay halis tahay. nasiib darro xaaskayga way isa soo taagtay wayna diiday go'aankeedii ayayna ku adkaysatay. waxaan ahay qof afkii garanaya oo ku hadla luuqadda Ingiliishka, balse xaaskaygu ma garanayso luuqadda. aniga ayaa u turjumaya, aniga ayaana garanaya ballantii dhakhtarka. dhakhtarku wuxuu ii sheegay dhakhtarkii ayaa aniga ila fadhiistay. dhakhtarkii waxa uu ii sheegay gabadhan haddii aanu ismudayn xaalkeedu halis ayuu ku jiraa, adigaana ka mas-uula. maxaa xalanin yahow? su-aashaas markii dhakhtarkii weydiiyey oo uu talo aniga i weydiiyey ayaan waxaan garan waayay waxaan ku jawaabo. go'aan ayaan gaadhay buu yidhi wiilkii. wuxuu yidhi xaaskayga aad ayaan u jeclahay, 2 carruur ayay ii haysaa, ee aniga ha layga saaro xubinta dhalmada ama xididka dhalmada. waan jeclahay, ma doonayo inay iga dhimato xaaskaygu. dhakhtarkii waa uu yaabay. wuxuu yidhi ha ku degdegin go'aankan, balse go'aan ayaan qaatay ayaan ku yidhi dhakhtarkii, oo kama noqonayo, waayo xaaskayga aad ayaan u jeclahay, aniga ayaa iska saaraya haddii ay diidday iyadu. dhakhtarkii waxa uu ii ballamiyey qolo counselor la dhaho si ay talo ii siiyaan oo go'aankan ay iga joojiyaan. wuxuu ii sheegay in muddo 3 bilooda uu sabti kasta uu ku kalihi jiray si uu la kulmo qolyahaasi counselorka ee dadka ka caawiya talooyinka iyo go'aamada khatarta si ay uga laabtaan. go'aankayga ayaan ku adkaystay buu yidhi. dhakhtarkii ayaan ku laabtay, waan la fadhiistay. dhakhtarkii waxaan u sheegay inaan anigu iska saari rabo xididkii dhalmada. go'aankaygii waxba iskama beddelin, waan jeclay xaaskayga. dhakhtarkii ayaa isbuuc labaad dib ii ballamiyey si aan bal isku beddelo oo go'aankayga wax ka beddel ugu sameeyo oo aan go'aankan uga laabto. waan ku laabtay dhakhtarkii markii uu dhammaaday isbuucii. waxaan u sheegay waa okay, diyaar ayaan ahay, ee ha layga saaro xididka dhalmada. waa lagaa saarayaa xididka dhalmada ayuu igu yidhi dhakhtarkii, maadaama aad go'aansatay, balse shuruudahan waa inaad buuxisaa. shuruudahaasi waxaa ka mid ahaa buu yidhi wiilkani oo iga sheekaynaya qisadiisan, in xaaskaagu ay kula socoto, waa inay saxeexdo in xididka dhalmada lagaa saarayo xaaskaagu oo ay warqadaha ku saxeexdo, goobjoogna ay ahaato. waa inaan xaaskaagu furiin kaa dalban karin inta nolosheeda ka dhiman oo aad nolosha isla dhammaysataan. waa inaanay nin kala guursan karin. shuruudahaasi ayaa laysoo dhiibay. gurigii ayaan imi 12 duhurnimo oo abbaara markii laga soo baxay salaadii duhurnimo. xaaskaygii ayaan u yeedhay. waxaan u sheegay inaan xididka dhalmada iska saarayo, waayo ma doonayo inaad iga dhimataan, ma doonayo ilmahayga ay wax noqdaan. aniga ayaa samaynaya mar haddaad adigu diidday. nasiib darro sadan iyo raatoona kama aysan gelin xaaskaygu. wax fiican ayay dhahday baad samaynaysaa, ee iska saar. waxaan u sheegay shuruudaha ay loo socdaa in aan iska saaro xididka dhalmada ee uu dhakhtarku soo siiyey. shuruudahaasi waa inaad saxeexdo maadaama tahay xaaskaygii. waa inaanad iga tegin, waa inaad nin kale aanad guursan, waa inaad noloshii la dhammaystay inta noloshaada ka dhiman. xaaskayga ayaa tiri waa okay, waan saxeexi. dhakhtarkii ayaan tagnay. intaanay saxeexin dhakhtarka ayaa u sharaxay dhakhtarkii waxaan laygu samaynayo, iyadoo xitaa dhakhtarku uu aad ula taliyey xaaskiisa si ay uga laabto go'aankan oo iyadu u marto. 1 bil ayaa hosbitaalkii aan ku jiray, waana layga saaray xididkii dhalmada. 1 bil kadib markii aan ka soo baxay, 3 bilood ay ka soo wareegtay, ayay isbeddeshay xaaskayga aanad ku jeclaa een wax kasta iyada darteed u sameeyey. ballankiina waa ka baxday, furiin ayayna iga dalbatay. hadalkii qalbigayga ayuu xagtay. hadalkaasi oo qalbigayga iga xagtay ee ay tidhaahdo wuxuu ahaa aniga nin koran ah oo aan raganimo lahayn, lama joogayo niyow, waa inaad i furtaa. koran ayaa tahay, koran nin ii noqon maayo, koran gurigayla joogi maayo.
waan ooyey saan maankaa filayn ayaan ku yidhi iyada darteed iyo jacayl aan u qabo ayaan waxaas oo dhan aan u sameeyey oo raganimadaydii u baabi'iyey oo noloshaydii ugu cayaaray waan baryey wax kasta ayaan isku dayay inaan u sharaxo balse nasiib xumo go'aan ayay qaadatay gurigii waa ay ka tagtay labadii gabdhood ee aan dhalayna waa iga kaxaysatay waa isfasakhday nin kale ayay guursatay labadaydii gabdhood ee aan dhalay ayay cuqdad ku beertay ayuu yidhi wiilkani cuqdadaasoo ah inay ku beertay gabdhihiisii aabbihiin waa koran aabbihiin ma dhalo aabbihiin nin raga ma ahan ayay ugu sheekayn jirtay cuqdadaasi ayay la koreen carruurtaydii labadaydii gabdhood aan ifka ka eeganayay